qol 14 bar ama baro haatan waxaan ugu gudbaynaa su'aalihii kale. Assalaamu alaykum sheekh, Allah ku sharfay. Waxaan ahay wiil Soomaaliyeed, waxaan ku weydiinayaa yaraantayda ilaa goor dhaweed waxaan si qarsoodi ah u qaadan jiray lacagaha meelaha isaga dayacan. Waxaan doonayaa inaan dadkii saamaxad weydiisto ama aan u gudo. maxaad igula tirin lahayd? ajri xasanaad alla soo koobi kareen Allah ka siiyo. alxamdulillah, xoolaha qaadatay waa laba qaybood. qaybna ilma caruur oo sabi aad ahaydo de sabi wax looma qoro. rifaal qalam aan 3 saddex qalinka waa laga kor yeelo wax looma qoro. waxa kamid ah waxaan sabi xataa yaxtalim ilma yarka ilaa uu qaan gaaro waxba looma qoro. xilliga wixii aad qaadatay de waa xaq dad leeyahay oo hadaad garanayso inaad celisay waa lagu leeyahay, laakiin dambi maaha. laakiin dambi waxay isu bedeli kartaa Axmedow haddii aad garanayso xaqiina kula jirood weynaatay dadkiina aad u celin karto wad garanayso wadan celin maadan dambaabin inaad ilma yarnimo ku qaadatay, laakiin adoo weyn xaqi lagugu lahaa inaad iska bixin weyday ood garanaysa dadkii lahaa u dambaabaysaa. wixii adoo weyn aad qaadatayna waa dambi iyo xuquuq dad leeyihiin laba gooraba dadkii haddaad garanaysana u celi. haddii kalena un sadaqaad bixi aad isleedahay wixii waa u dhigantahay oo dadkii ula niyo ilaah baa yaqaan oo rabbi kama qarsoomaan subxana wa taala kamana lumaan oo fii kitaabi laa yadilu rabbi walaa yansaa bay ku qoran yihiin. aan marna lumaynin lana halmaamayn. adigana hadhow xasanaad intii lagaa qaadan lahaa iyadaa kaa kaafini. ilaahina dambi dhaaf u weydiiya haddaad garanaysana xafis haddaad weydiisata amaad u celisa kii aad ka heshaba kifaaya weeye billahi towfiiq. walaal waan idin salaam